السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا قنصر أونلاين أكاديمي وعشر كلا وكم إذا كورس كني بلا وحسابته وعشر كي هرب وحن كسر برني بليس فاليو قيمة رجيتك وحن صار رجني سيابها كلا دوان إلا ما قعابه أما إنجليزي لوجو شيء مركي تراد وقرنت هاي تروين أما إن بركو قرنت هاي ما أنت وحن يسليه جدونا بليس فاليو of decimal numbers أما با decimal بليس فاليو قيمة رجيتك تروينك طبعا لياشة أما تروين كله decimal بوينتك أما دبعده محل جوده تروينك طبعا لها تروينك طبعا لها وحل جوده ما نتلو يتوه حين صار شيء إن تروينك يستعمل ليهين طبعا نمبر وهذا تسد لدونه الله هبايو مركل سلوجو ترسده تروينك بدن أما كقيمة وين أنت أيهين سيرو إلا سجال بينو شيء لكن وحلو أديكسين كلا إن مليونس لوجو تريه يجوا بالله هبينا tiro waliba halkay taalo ayay qiimihiidu noqonaysaa maanta waxaynu eegaynaa bal 1 iyo 2 maxaa u dhaxeeya 1 ilaa 2 inta la gaarin waxa u dhaxeeya qiimayaal baa u dhaxeeya oo de hal iyo bad waxa u dhaxaysaa hal iyo 2 ay u dhaxaysaa waana tirooyinka aynu wax ku tirsano run ahaantii tirooyinka maxaa loo yaqaanaa tirooyinkaas ayaa loo yaqaanaa decimals toban layaal haddaynu tusaale ka bixino 3 iyo 2 4 maxaa u dhaxeeya tirada 3.5 labadan bay u dhaxaysaa waxay u dhaxaysaa 3 iyo 4 3 iyo 4 ayay u dhaxaysaa waa 3 iyo bad wali waynu ka sii weynayn karnaayo waxaanu oran karnaa 3.5 6 4 7 bal tirada eeg waa tiro aad ugu sii dhow afar way uga sii dhowdahay tii hore afar way uga sii dhowdahay haddii ay nimka nahno ka waran 3.99 maxaa ka dhiman inay noqoto ay 4 noqoto wax aad u yar baa ka dhiman tiradaas inay 4 noqoto waxa weeyaan waa 3.99 waxa ka dhiman gabigeedaba 0.01 haddii imka ay lacag ahaan lahayd oo kale lugaha intaasoo kabaad lagaa siinaya ama alaab lagaa siinaya 3.99 markaad $4 dhiibtid maxaa lagu soo qolinaya wax aad u yar baa lagu soo qolinaya shilimaadahu sarifan 3.9 marka waxa ka dhiman hadii aynu xagga sentiyada ka eegno 0.01 senti baa ka dhiman 0.01 senti maxay noqonaysaa ka qiyaas markaad mobilkaaga oo kale ku hadlayso inta ay shaqeynayso oo barbar dhig 4 iyo 3 faraq u dhaxeeya marka tirooyinkaas looga wadaa ama looga socdaa decimals tirooyinka waxa loo yaqaanaa toban layaal marka kuwa la sheegayo marka waynu soo baranay imka tiradaas kale waynu soo baranay sida loo sheego tirooyinkii hore waynu soo baranay sida qiimo rugeedkooda loo sheego oo imka hadii halkaas inoogu qoran tahay 1432 haday inoogu qoran tahay qiimo rugeedkeeda mid walba aynu garanayna tuugu wuxuu yaalaa onis place tirigu wuxuu yaalaa waxa loo yaqaano tennis place kani 100 place kana wuxuu yaalaa 1000 place bal hadii ay qaar ka sii dambeeyaan ka warrano bayntiga markii la dhigay 3 2 4 kala la dhigay oo ay dhibicda ka sii dambayso maxay ay tirooyin ka sii dambeeyaan tirooyinkaas sidee baa loo magacaabaya ama sidee baa loo sheegaya qiimo rugoodkeena casharkeena ayaynu ku eegi doonaa waaye aynu tusaale ka bixino decimal place value waxa la tiradan waxaad sheegtaa place value-geeda adiga sheeg baa lagu qiimo rugeedkeeda sheeg qiimo rugeedkeeda god walba qiimo rugeedkiisa sheeg midagow inta dhinacani waxa inoo sheegtaa whole number tirada dhammayska tiran bay inoo sheegtaa waa tirooyinkeena tirsimay ka mid tahay oo caadiga ah marka sidii aynu casharadii hore u soo baranay ayuun bay noqonaysaa halka qaybtan ay tahay qaybteena ugu cusub sidee baynu kala magacaabaynaa tan ugu horeysa horeynu soo baranay ku wareeri mayno waxay inoo noqonaysaa onis ta ku xigtaa maxay inoo noqonaysaa tennis ta ku xigtaa maxay inoo noqonaysaa hundreds koowaad tobnaad boqolaad wuxuu ka sii dambeeyana waa inagii sidii soo baranay dhinacaynu u soconaa waa dhinacan tani waxay inoo noqon doontaa ta ugu soo horeysa ee decimal ku xigta ama godka dhibicda ku xigta waa tolo yaqaano tens
tanna waxay tennis taasina waa tennis faraqa u dhaxeeya wada aragtaa xagga qoraalka faraqa u dhaxeeya wada aragtaa tani waxa weeye godka labaad oo waa tobnaad tanna waa godka koowaad ee decimal point marka xagga midigta loo kaco oo waa tennis waa tobneed tan ku sii xigtaa maxay noqonaysaa hundreds boqoleed halkaa markaad marayso wixii ka dambeeyay oo dhan weynaad si wacan u fahamtay tani say u soconayso mid walba waxaa lagu daray s baa lagu daray kuwan hundreds thousands 10,000s 100,000s kana mid walba maxaa lagu darayaa hadda halka ka aragtid th 100 ka waxa lagu darayaa th 1000 ku wuxuu noqonayaa marka ka ku xiga wuxuu noqon doono waa inaad hadda si fiican u garanaysaa oo wuxuu noqonayaa tan hadaynu raacino 1000 marka hore waa tasaa loo qoro muxuu markaa noqonayaa marka godka la doonayo in la tilmaamo th baa lagu darayaa thousands ths tens st tan noqonaysa mid walba ths ayaa lagu daraya ths ayaa mid walba lagu daraya marka waxay noqonaysaa tan tenses hundreds thousands ta ku sii xigta waxay noqonaysaa 10,000s saasay ku soconaysaa marka waxa weeye qiimo rugeedkii waynu fahnay markuu xagga ka xigo midigta markuu xagga bidixda ka xigo waxa weeyaan waa marka aynu leenahay boqolaad tobnaad koowaad waa markaynu saa u tirinayno waa tirooyinka idil tirooyinka decimal pointiga ka dambeeya waxa weeye waa kuwa loogu dhawaaqo tenses ths baa mar walba la raaciyaa halka kuwan s la raacinaya keliya wixii ka dambeeya thousands ka dambeeya 10,000s iyo 100,000s mid walba ths taasun baa raaci doonta sidaasaan ay kala xadaysan yihiin waxa loo yaqaano decimal place value markuu decimal point yahay iyo marka uu yahay whole number ama tiro idil markuu yahay iyo markuu yahay tiro toban la intaas waa intaas qaybteena kale waxaanu ku eegaynaa even and odd numbers tirooyinka dhabanka iyo tirooyinka kinsiga even numbers waa maxay waa tirooyinka dhabanka odd numbersna waa tirooyinka kinsiga tirooyinka evenka ama tirooyinka dhabanka ahi waa tirooyinka isleeg ee aan lahayn hal dheeriga kuwa oddka ahina waa kuwa leh hal dheeri marka tiro kasta waxaad ku garan doontaa inay tahay tiro dhabana ama tiro kinsiya waxaad eegi doontaa numberka u dambeeya haddii horta aad kala baratid 9ka u horeeya tiro kasta waad baratay macnaheedu weeye 9ka number haddaad ama 10ka number aad kala barato inteebaa dhabana iyo inteebaa kinsiya tiro walba oo lagu qoro intay doonto ha leekaato waxaad eegi doontaa godka u dambeeya dabeedna waxaad garan doontaa ma odba mise waa ifan ma tiro dhaban baa mise waa tiro kinsi imika kuwan baynu kala saaraynaa tirooyin odha iyo tirooyin ivana ivanku maxay inoo noqonayaan tiro kastoo 0 u dambeeyo hal baynu boodaynaa 2 4 6 8 kow laba saddex afar shan number halkaa inoogama qorna intaasaa loo yaqaanaa even numbers iyo tiro kasta oo ay u dambeyso intaa midkood u dambeeyo ayaa loo yaqaanaa even number odd numberna waa maxay waa 1 3 5 7 9 iyaguna tirso waa 5 shantaa number ayaa iyagana loo yaqaanaa odd number tiro kinsi ah tiro kisi iyo tiro dhaban iyo tiro kisi tirooyinkaas waxaad ku garan doontaa hadhowto tiro kasta oo u dambeyso intaa mid ka mid ihi waa tiro odd ah tiro kasta oo ay u dambeyso intaa mid ka mid ihina waa tiro even ah oo waa tiro dhaban ah imika haddii aan halkan kuu qoro 4876 tiradaas maxay noqon doontaa haa sax waa tiro even ah ama waa tiro dhaban ah sababtoo waxaa u dambeeya 6 bal ka war hadday tiradaa noqon lahayd
maxay noqon lahayd tiro odd ah ama tiro kisi ah bay noqon lahayd marka tirooyinkana waxaa loo kala qaybiyaa markooda horeba laba kooxood marka laga eegayo xagga oddka xagga evenka labada kooxood ee loo yaqaano even number iyo odd number waxaynu arki doonaa insha Allah taala casharooyinkeena soo socda in tirooyinka loo kala saaro haddana prime iyo composite waxaan rajaynayaa inaad si fiican u kala fahamtay odd number iyo even number sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad casharkan aad si fiican uga bogatay waxa loo yaqaano decimal place value ama place value guud ahaantiiba casharkeena halkaas ku eegyahay wax alla wixii aad fahmi weydaan ama adkaada waa isoo weydiin doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh